inta ee kule maxaydan saaxan kee maxaygan markii aad u ciyaar dhashid aad wali markaad gabadh dhashid way gabadhaadu maqashadigoo leh adigaagan ha fanaanka ee macnaha waxyaabaha fooshxun ku hadlaya kule waxa weyn ii soo diib iyo waxaas markii gabadha aad dhashay maqashadigoo leh wax weyn ii soo diib iyadu maxay sameynaysaa waa ku sheega aniga waxa ku dhahay reaction ka diris la abdu wuxuu ka duwan yahay reactionada kale. Assalaamu calaykum magacii waa Muuse YouTube ka daawanaysan waa Muuse Ismaaciil fadlan YouTube channel ka cusub tahay daawashadaadii kuwaad waxaan ka codsanayaa inaad subscribe gareyso gambaleekana afro si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya waa kuma asatahay kim noqosho janaakiin waxa ku leeyahay soo dhaw. Okay ha iloobin ina Instagram-kayga soo follow gareyso waxa ku qoran Muuse Ismaaciil 1. Okay maanta waxa ku wadaa waxyaabo dad badan aynan ogeyn in aan ogeysiiyo. Okay waxa jira YouTuber fara badan oo reaction bixiyo balse waxa doonayaa dadka inaan ogeysiiyo dirisla abdi YouTuberada reaction ka bixiyo wuxuu dheer yahay reactionkiisa macnaha wuxuu ka duwan yahay reactionyaasha kale. Okay waxa jira YouTuber qaar oo macnaha reaction ka funny ka sameeyo macnaha video qosol badan ee reaction ka sameeyaan marka isaga waxa okay markii isaga wuxuu ku jiraa YouTuberada reaction kooda yahay inay dadka la hadlaan ay wadada toosan tusaan ma ahan dadka hadoo kale gabadha soo qaabisay calaashaan macnaha waxay soo gashatay dhar ku dhagan iyo wax kuma dhahayo wallahi saasay u qoosanta saasay u taalaa way shidantaa iyo ku dhahayo wuxuu ku sheegaa runta wuxuu ku leeyahay waad qaawan tahay is astur. Okay marka waxa rabaa clip yar oo xalay soo dhigay ina reaction ka bixiyo oo aan wada daawano no bilaab kan malaha ma ogaba in 17 laga winaanayo in loo soo dhan ahayn 17 ilaa 30 oo 40 la noqonayo oo 40 la noqonayo oo 45 la noqonayo oo ciyaal la dhaldalayo oo ciyaalka waxan ah soo dhigtay YouTube ka daawan doonaan ma dadkan fanaaniintu ay kala duwan yihiin dadkan fanaaniinta ee kule maxaydan saaxan kee maxaygan markii aad u ciyaar dhashid aad wali markaad gabadh dhashid way gabadhaadu maqashadigoo leh adigaagan ha fanaanka ee macnaha waxyaabaha fooshxun ku hadlaya kule waxa weyn ii soo diib iyo waxaas markii gabadha aad dhashay maqashadigoo leh wax weyn ii soo diib iyadu maxay sameynaysaa waa ku sheega aniga waxa ku dhahay reaction ka diris la abdu wuxuu ka duwan yahay reactionada kale. meeshan dad ba soo qaawiyay oo muuqaal xalay soo gabdhanini kinay iyo waxaas oo caadi wuxuu yiri 17 nolosha kuma ekaanayso ilma baad dhalaysaa ilmahaaga waxan arkayaan ilmahaaga maxay sameyn doonaan adigii baaba sidaan sameynayay ilmahaaga maxay sameyn doonaan waa wax in laga fikiro loo baahan yahay dirisla abdi noo diyaaq dadku inay xoorin yihiin war waxay moodayaan kaliya inay dhalinyarnimo weligood jooyaan ma YouTube ka dhigid garan markaa heesta YouTube ka dhigid garan markaa heesta waxaan waa YouTube ilaa inay heestu meel walba ku jirtay teeda kale waxa lagu yiri fanaanaan tahay inaan naag Afrikaan ku neekisay ama naag Soomaaliya waxay doonta ahaato waxaad ay shahaba ku jirin in dhaqanka Soomaalida ku soo heestay bal ka waran cunugaaga yar ee gabadhaada yar ee mustaqbalka dhalan doonto maxay sameyn doontaa wax in laga fikiro loo baahan yahay abti hadeedan hadda fikirin ma marka ciroolo noqotaa shalaag doontaa wallahi wuxuu sheegay dirisla abdi waa run abti hadeedan hadda fikirin markaad ciroodo ma shalaag doontaa oo dhigi doontaa Allah markaas isaan iska dhaafi lahaa maxaad sameynayde taadi yareed waxa bay daawan doontaa leedahay imika ha 20 dhowr baad tahay 30 baad tahay 34 baad tahay doontid laakiin markaad 40 gaadid guursidid ciyaal dhashid waliba wiilkaaga ma aan wiilkaaga ma hadayo gabadhaadan ka hadlaya markay daawato adigoo leh waxaan ii soo dhiib weyn maxay is oranaysaa wallahi aabbo kale waxaan ii soo dhiib weyn maskaxda loo shaqeyso hayska abti dirisla abdi waxaad heesaa shaqo fiican wallahi billahi bema ku sheegay waxaad heesaa shaqo fiican sababtoo ah
qof dhan oo waddo qaldan ku socdo baa waxaad doonaysaa inaad waddo toosan kusoo rido. youtuberada waxaa sameeyana way yaryihiin. anta haddii reaction aad bixinayso ha dhihin wallahi xabadaas way shidan tahay wallahi billahi inaan ku yaacwaya wallahi billahi ooba aa u fikirtay micnaa dad le inaa ka qosalsiiso. qofkan waxaa sameyn kartaa inaan waddadan ka soo waddo oo waddo toosan aa kusoo rido. bal ka waran haddii waddadii qaldaneed aa kusii saxdo oo aa dhahdo waa shidan tahay wallahi soco. waa wax xun. iminka Dirisla Cabdi wuxuu la hadlayaa fanaaniinta waxa waaweyn micnaha dhaha waxweynaa sidaa iyo bal waxaa lagu leeyahay gabadhaada yar ee mustaqbal ka dhalato maxay sameyn doontaa waa adigii sidaan sameynayay. iyadana waxay noqon doontaa kuwa lagu ninikiyo sababtoo aadaa sameeyo xanadaa waddadan fale iyadoo way maraysaa le iyadoo nadiif ee waddada. marka fikir markaa cirowdo hashalaan. okay teeda kale Dirisla Cabdi wuxuu yiri aniga waan heesi karaa oo waxaan doona waa sameyn karaa balse waxaan ka fikirayaa mustaqbalkayga. أنا يمكن سيدتن هي سوى سوق هذا كراو وحصل لي لكن ما حنك فكرة مستقبل كي قدام به يعني كعب سنة إلهي. okay wiilkan oo micnaha waxaa ku qiyaasaya inuu jiro 25 24 meelahaas adiga oo ka fikirayo mustaqbalkiisa berito adiga oo micnaha laga yaabo inaad ka weyn tahay sanadooyin. bal ka waran haddii aadan ka fikirin mustaqbalkaaga oo waxaa doontaa iska samayso. wallahi waa caqli xumo. waxaan idin oran lahaa dhammaan fanaaniinta dhaqan xumada ku socdo fikira aqliyadiina yaraa shaqeyso. okay aniga Dirisla Cabdi markaan ka sameynayay wareysiga dad fara badan baa ay u aflagaadeen. waxaan idin leeyahay aniga caydiina horta uba qabanayo balse aniga wax xumaana kama damacsadeen wareysyada balse waxaan ka sameynayay wax qosol ah. wallahi waxaan aaminsanahay Dirisla Cabdi inuu yahay youtuberka keliya ee waddada qaldan dadka ka soo toosiya waddada toosan kusoo rida. Dirisla Cabdi waxaan ku leeyahay shaqo wanaagsan baad haysaa. hadda shaqadan joojiso aniga waan kaa haray. haddii aad shaqadan joojiso aniga waa kaa haray. okay markale waxaa idin leeyahay fadlan haddaad janaalka ku cusub tahay subscribe iska saar. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan hadda waad hayno balna videoga xigo. bye bye.